لا والجديد والموضوع وراه sheekh shaab maxamed jaakir waa u mahad celinayaa soo dhowayntana waa ka mahad celinayaa wiilashii bilaabay halganka oo suurto geliyey inaan halkan iyadoo nabada isugu nimaadnana waa u mahad celinayaa kulligood intii dhimatayna waxaan leeyahay ilaahay jannada ha ka waraabiyo guriceel maanta waxaa hor taagan ra'iisul wasaarahoodii waxaa fadhiyo taagan sidoo kale taliyayaashii ciidamada qalabka sida waa taariikh cusub oo isqoraysa soo maaha waxaan rabaa inaan idinla hadlo idin dhegaysataan waxaan ku bilaabayaa geyigii ayeeyiyo guriceel ma nabad baa gogashii ugaaskii oo garabkii ceelbuuray guriceel ma nabad baa gurigii gorfayntow gacaltooyo dhowrow guriceel ma nabad baa si fiican idinma maqlo xaruntii ganacsiga weeye guriceel ma nabad baa dhul guduudanoo sii guduudan weeye guriceel ma nabad baa garoor ari
iyo giiro sixin ku hodanay guri ceelma nabadbaa salaan gacaltooyo naga guddooma reer guri ceelow maantay magaalada guri ceel waxaa shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan iyo adduun weynaha inteeda kale reer guri ceel ay u dirayaan farriin ah dowladnimadii soomaaliya way hana qaaday soomaaliya way soo noqotay farriintaas ayay reer guri ceel dirayaan maanta waxaan ka mahad celinaynaa soo dhowaynta diiran haddaad tihiin walaalaheen reer guri ceel waxaan rabaa inaan idiin sheego halkan waxaan u nimid idinka inaan idiin shaqayno inaadna amartaan inaad noo sheegtaan qaabkii aan idinkala shaqayn lahayn galmudug dhammaystiran midnimo ku dhisan caddaalad ku dhisan horumar ku dhisan galmudug xooggan oo siman oo u adeegi karta dhammaan shacabweynaha reer galmudug inaan idinla dhisno ayaan idinkugu nimida diyaar ma u tihiin hormuudka ma qaadanaysaan ma nagu hoggaaminaysaan dariiqa saxda dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka waxay u yimaadeen inay reer galmudug la shaqeeyaan meel walba oo aan tegey laga bilaabo dhuusamareeb cadaado xeraale huurshe caabudwaaq iyo guri ceel oon hadda taagannahay meel walba oo aan tagnay shacabka reer galmudug waxay yidhaahdeen waxaan diyaar u nahay dowlad goboleed u adeegta shacabka reer galmudug waxaan aad ugu faraxsanahay idinkuna inaad farriintii aad soo gudbiseen dadka kale ay soo gudbiyeen waxaan rabaa inaan idiin sheego qolo dowlad laguma dhisi karo qabyaalad dowlad laguma dhisi karo nin jeclaysi dowlad laguma dhisi karo dan gaar ah dowlad laguma dhisi karo walaalahay reer guri ceel oo la garanayo taariikhdooda galmudug waxay idinka rabtaa hiilkaasoo ah inaan ku ridno dariiqii saxda ahaa dariiqaasna waxaan aaminsanahay haddii reer guri ceel ay u mudoobaan inay wax badan ka tari karaan midnimada inta kale ee reer galmudug waxaan rajaynayaa marka dhallinyarada hooyooyinka gabdhaha soomaaliyeed odayaasha dhaqanka iyo cid walba oo reer galmudug oo ay ganacsatada ugu horrayso inaan idhaahdo waxaa la soo gaaray wakhtiga la dhisi lahaa galmudug midaysan hayaysan oo toosan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo dadka soomaaliyeed waxay leeyihiin taariikh la yaqaan taariikh ka madax bannaan qabyaalad iyo qoloqolo 1948 halgankii SYL markii ay damceen inay allah u naxariistay halyeey cabdullaahi ciise maxamuud u diraan qaramada midoobay ama markay waagaas ay ugu yeeri jireen unada si uu ugu soo sharaxo qadiyadda iyo rabitaanka ummadda soomaaliyeed oo ah in gobonnimo degdeg loo helo wuxuu gumaysigii wakhtigaa ku yidhi dhallinyaradii idinka ficiinna ahaa oo SYL keensada qofka aad rabtaan inaad u dirtaan qaramada midoobay ha la tallaale maadaama ay sharci ahayd in la tallaalo qofka dhoofaya halgamayaashii iyagoo ka baqaaya in la sumeeyo allaha u naxariistee cabdullaahi ciise ayay waxay soo hormariyeen nin la yidhaahdo maxamuud yuusuf muuro
oo ka cabdullaahi yuusuf oo naftiisa soo qadimay cabdullaahi ciise ninkii u ekaa allah u naxariistee oo la tallaalay wuxuu u tegey inuu badbaadiyo nafta cabdullaahi ciise sida halganku uu qiimo u lahaa wakhtigaa isaga ah waayo wakhtigaa isaga ah soomaalidu waxay ahaayeen waddaniyiin waxay ahaayeen dad wada jira waxay ahaayeen dad isjecel waxay ahaayeen dad qoloqolo iyo qabyaaladda ka soo hor jeeda waxay ahaayeen dad midaysan muuro allah u naxariistee iyo cabdullaahi isku qabiil ma ahayn isku qolo ma ahayn waxa uu naftiisa u qadimay inuu naftiisa u hibeeyo walaalkiis uu u sii wada halganka waxaa la mida 8 wiil oo naftooda soo qadimtay si ay maanta noogu oggolaadaan halkan inaan ku caweyno soomaalinimadana ku xusno 8 wiil ilaahay ha abaal mariya halgankoodii waxa uu kalifay in maanta aan idinla hadlayno anigii sheekh shaakir aan u tagnay halgamayaal kale oo ku xaraysan qaybta 12aad waxaan maanta ku guulaysanay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaan keenno qaybta 12aad si ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay uga howl galaan waxaa kaloon maanta ku guulaysanay in wiilashii idinka soo jeeday oo idin difaacayey aan ugu sheego qaybta 12aad horteeda in la qaramayn doono ay qayb ka noqon doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay difaaci doonaan dalka xorayn doonaan gobollada kale ee ka tirsan dowlad goboleedka galmudug waxaa kaloon ku soo aragnay qaybta 12aad oo ahaan jirtay lafdhabarta difaaca dalka soomaaliyeed siday u burburtay waxaan ku soo aragnay dalkeennu sidii uu dib ugu dhacay waxaan xasuusannaa markaan dhallinyarada ahayn inta aniga ila da'da ah iyadoo la leeyahay cadow ma imaan kara soomaaliya waayo waxaa jirta qaybta 12aad waxaan geeyey taliyaha xoogga maanta oo khushuucay markuu meeshii arkay dhibka aan aragnay iyo dhismihii dumay iyo meeshii iyada ahayd oo ahayd meeshii difaaci jirtay sharafta soomaaliyeed waxaan u baahannahay inaan ku celinno meeshii dhib intii aan soo marnay ayaa nagu firan waxaan leenaha marka waa inaan ka barannaa allaha u naxariistee muuro iyo cabdullaahi ciise inaan ka barannaa 8 wiil oo halgamayaasha ahaa sababtoo ah waxay ku sifaysnaayeen soomaalinimo aan liin baxayn marna aan liin baxayn soomaalinimo aan doorsoomayn soomaalinimo aan fasaqmayn waxaan rabaa walaalahay reer guraceel marka inaan u sheego dowladnimada hana qaaday idinku aad hormuudka u tihiin si loogu daneeyo dhammaan shacabka reer galmudug iyo sharafta soomaaliyeed meel walba ay joogto idinka ayaa laydinka rabaa dowladduna waa adeegayaashiinnii idinka idiin adeegaysay waxaan rabaa sidoo kale halkan maanta walaalahay reer galgaduud iyo walaalahay riirheyraan inaan iyagana ka codsado si walaaltinimaha aan uga codsanno ma isqaban karaan inaan dalka dib u dhisayno iyo in meel halkan aan ka fogayn matabaan oo il guulle la yidhaahdo in lagu daadidaayo dhiig waxaan leeyahay ama reer hiiraan ahaw ama reer galgaduud ahaw waa in la joojiyaa dagaalka loona joojiyaa sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay yidhaahdo waa in qof walba oo gacan ka geysan karta in dagaalka la joojiyo dadkana la islu keeno ay joojisaa qaybna ka geysataa markaasna waa inaan nidhaahdaa mar dambe aqbali mayno in wiilal ay nooga dhintaan macno darro
وأنا نرادا مردم بما أقبلينه إن عروتنا مستقبل كذا الحماية وأنا نرادا مردم بيانا في سنن خلدا وحكا بنكرنه وأنا كل جين نرادو وقت دجالك واد ماضي reer Guriceel waxaan galnay waqtigii nabadda waqtigii nabadoonnimada waqtigii midnimada waqtigii dib u dhiska dalka Soomaaliyeed si aan u soo celinno sharafteena waqtigii horumarka waxaan leeyahay marka Guriceel waxaan maanta idinkugu yeerayaa inaad hormuud ka noqotaan waqtigii nabadda nabadoonnimada midnimada dib u dhiska iyo horumarka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh